nimankaa jigjiga jooga ee Soomaaliyeedna ay hogaaminayaan qoyskan reer Macallin hogaaminayaan wax waajib ku ah ninka la sheegay ee jigjiga jooga ama Addisaba jooga ee wax ka sheegay duraya diintii iyo dadnimadii Abu Bakar iyo Umar iyo Aisha iyo Xafso waa in adduunka la dhaafiyo muslim ma aha waa murtad zindiqa reer Macallin ma aha Soomaalina ma aha gaal weeye geesa waaweyn dhiigiisu waa idin xalaal dhiigiisu waa idin xalaal aakhirana u qaawan adduunka la dhaafiyo muslimka waxaan u gudbayaa waan gabagabaynaynaa wax badan baan ka tagay xukum masaba sheekhay labada imaam Abu Bakar Siddiq iyo Umar ninkii caaya maxaa uu xukum ah hawsha iyadu waa muhiim inaan wax yar ka taaban oo daqiiqada ka badnay waxaan leenahay marka koobaad sayidina Abu Bakar Siddiq iyo Umar wanaagooda ilaahay rasuulkiisa baa ka hadlay muslimiinta oo dhan baa ku ijmaacay qiimahooda iyo qaayahooda wax la soo koobi kara ama fadhi kaliya lagu sheegi kara ma aha waa bad aan xeeb lahayn hawshoodu waxaan maanta haysanay islaam ana waxaan islaan ka haynaa iska yarbee waa dhaxalay iyagu inooga tageen oo inoo ilaaliyeen bacda rasuulillah sallallahu alayhi wasallam haddii Abu Bakar uusan jiri lahayn muslimiin lama arkeen bacda almihnati waridda fitnooyinka sayidina Umar xilligiisa jiray ninka hor istaagay ee wadada muslimiinta u jeexay ee wadada laamiga ee weyn haywaga inoo jeexay asaga weey marka qaadku wuxuu ku dhaaran jiray wadada idin qaaday haddaad qaadaan muslimiin waxa idin ballan qaadaya allo idinka raali aan la kulanta laakiin yeeli maysaan buu waxaan hakraday ma jiro naftaydii baan ilmaamay xoog iyo xoolo waxaan laban isku geeyay inaad toostaan wadada aad qaadaan ilaa yawmina hada bay gaaladu daraaseeyaan Umar siyaasadihiisi qaab maamulkiisi dhaqankiisi ummadda inta la eeg soo cadaalad ugu soo dabaalay ilaa uu geed iska seexan jiray keligay waardiyeelaan Umar istaaf ma lahay qaaradii adduunka ninka dumiyayna weeye ee reer Faris iyo reer Kisra iyo reer Qaysar iyo reer Rome dhulka dhigay weey wuxuu saqabay oo ogtiin dadkii noocaas ahaa in diinkooda wax laga sheego oo la dulmo oo la duro oo la cambaareeyo la dhaleeceeyo la xagto miyayna qabataa haddaan muslimiin nahay maya waxaa lagu yaqaanaa bini aadamka axadkay jecel yihiin ay qiimeeyaan axadkii ka agdhawaa ee wax tari jiray madaxuu u saaran yahay Soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkii magacaada sheegta maqashaa loo jiraa hadda haddii lagu yidhaahdo aabbahaabuu ninkan saaxiibkii ahaa aabbahaabuu wax tari jiray aabbahabaa la tashan jiray aabbaha markay hawsha cuslaato ciidan iyo awoodiyo cudud ka dhigan jiray ninkaa dadka waad ka jeclaanaysa aabbahabuu wax tari jiray ama gacal ama garab aabbaha baan isnaqaano hooyadaa baan saaxiibba ahayn hadday gabadhu ku tiraahdo habaryari hooyoy baad leedahay bini aadan saasaa lagu yaqaanaa axadkay qiimeeyeen ay qadarinahay oo nabi maxameda calayhi salaatu wasalaam axadkii ka agdhowaa ee saaxiibkiisa ahaa ee gacalkiisa ahaa waxaa la rabaa inuu nabiga agtiisa kuu joogo ummadihii naga horreeyey nabi muuse dadkii ka agdhowaa bay dadka ugu jecel yihiin nasaaradu nabi ciise axadkii ka agdhowaa bay dadka ugu jecel yihiin ummadda nabi ibraahim raacday ama ismaaciil la joogtay ama ambiyadoo dhanba nabi kasta waxay u jecel yihiin inta rumaysan ciddii ka agdhoweyd ee saaxiibadooda ahay aafada annaga nagu dhacdaan muslimiin waxaa la helay kuwa islaam sheeganaya oo u necab dadka ugu necabhee nabi maxamed saaxiibadii soo mushkilo ma aha oo waxaysan yuhuud samaynin nasaaro samaynin majuus samay wax sameeyey bini aadam waxa dabiiciisa ka baxsan wey wax dabiicada bini aadamka iyo baxaaliga iyo dhaqanka aadamaha ka baalmaray wey saa darteed waxaan leenahay markaan soo khulaasayno sayidina abubakar sidiiq iyo cumar ninkii wax ka sheega xukumkiisu wuxuu ku caddaanayaa masaa'ilkan dhowrka ah midda koobaad waxaan leenahay qof muslima in la caayo oo wax laga sheego ayaan asalba bannaanayn waa kabiira min alkabaa'ir biijmaaci lmuslimiin qof muslima in la duro oo lagu xadgudbo
لما أقول بإجماع وأنا كبيرة من الكبائر وغيبة مركا يرتأم وقذف توا قذف قف مسلمة قذف كاللبات قف مسلمة عيدي يا أفلقات دينتي قفك بنيستنا وقال بإجماع المسلمين قف مسلمة أفلقات دينتي وحكا شيقدي دردي كحد قدبكي هذا بنيستو المستحيل النقطة مسلمته والله بمسألة اسكعدها waxaa kuu yimid saxaabada qofkii caaya saxaabada qofkii caaya laba mid un weey inuu hal fardi oo saxaabi ah wax ka sheego uu caayo fardi laba iyo saddex inuu kulligood wada caayahayo ama badankood uu wada caayo duro cay dhaawacaysa diintoodii iyo cadaaladdoodii أطعنوا في الصحابة لبدا مدوي إن أفراد يا أشخاص هذا وحكا شيء يين إذا الكود يا وضرت تقولك كقبان يسو أما بدن كود وحكا شيء يسو دورتاني عيد دعوة يسو دين تودي يو عدالة تودي ضد الصحابة بدن كيت وحكا شيء أما كل قد أدرتو كافر باتاي بإجماع المسلمين مسلم متى يتقال باتاي sidoo kale waxaad gaal tahay biijmaac muslimiin hadaba saxaabada badankood wax ka sheegto sida raafidada oo yiri saxaabadu nabigu markuu dhintay way gaaloobeen ama fisqi bay ku dhaceen cali bay dulmeen kanay sameeyeen fisqi iyo dambi bay u tiin saxaabada badankood ilaa 5 qof ama 6 qof mooyee 5 bay ka soo reebeen ama 6 bay ka soo reebeen kuwa noocaas inay gaalayihiin waa ijmaac muslimiin maxaa yeelay saxaabada kulligeed haddii la duro cadaaladooda iyo diintoodii ama xaggay u badnaayeen wax laga sheego le intaa un afartaa ama saddexdaa mooye inta kale waxay dad xun bay ahaayeen kitaabka qur-aankaan idiin sugnaanaynin sunnadaan idiin jiraynin wax diinoo idiin sugnaan islaam man ahaanaysaan leanna waxaad haysaan yaa soo guuriyey yaa nabi maxamed ka soo xigtay نبي محمد حكي عفوا صحابه كسو حكت نبي محمد كسو حكت الله رب العالمين طريقه دنبا حرميه والنسخ للدين الاسلامي ودمين دينتين اسلام ما جرتوا معناها يا بين لسو شيء ومركز صحابه بدنك اما كل قد wax laga sheego la duro duritaan diinkoodii cadaadooda dhaawacay waxa ku soo haray hal saxaabi inaad durto wax ka sheegto wax sheegidii dowlad dhaawacaysa diintiisa iyo cadaaladiisa ayadoo inay fisq tahay oo kabiira meel kabaa'ir tahay waa ijmaacu muslimiin inaad mudanta in lagu karbaasho lagu garaaco lagu xiro lagu dhibaateeyana waa ijmaacu muslimiin laakiin ma ku gaaloobaysaa mise kuma gaaloobaysa fardiga aad wax ka sheegtay tafsiil baa ku jira fardiga la fiirinaya fardiga saxaabiga wax ka sheegtay haduu yahay saxaabada iimaankooda iyo islaamnimadooda iyo cadaaladooda ilaahay in badan ka hadlay rasuulkuna ka hadlay muslimiintuna ay ku ijmaaceen mimman tawaatara fiihi min aladilla ka abi bakr wa cumar wa cuthmaan wa cali oo kale dad wax ka sheegto durto duritaan dhaawacaya diinkiisa iyo cadaaladda kaafir baa tahay hadday yihiin saxaabada kale ee adilla cadcad aysan ku imanin ayago islaamnimadoodii si gooni ah cadaaladoodii ammaanadoodii aysan ugu imaninna faasiq baa tahay tacsiir baad mudan tahay in lagu baqdhabaad mudan tahay in xabsi dheer lagu geliyaad mudan tahay calacaan lagaa garaaco labadaa tafsiil baa ku jira marka waxaa kuu soo haray abubakar iyo cumar ka warbaad adaba maxay yihiin adilada ku timi abubakar iyo cumar cadaaladoodii wanaagoodii islaamnimadoodii diintoodii dadnimadoodii axaday ku timid ma jiro oo muslim ah axad muslimay ku timid adilada ayaga ku timid ma jiro ninkii wax ka sheega dura lacnada qodqoda ceebeeya dhaleeceeya cambaareeya caaya aflagaadeeya aflagaadadaasoo taabanaysa diintoodii dadnimadoodii cadaaladoodii taabanaysa مسلم ما هو قال قبل مسلم وما مهرسميسو ماشي لا دونا لا اركان لو ديري كذا يقتل في الحل والحرم وكو اورنجري ابن كثير وكان اراقه دمه احل
من إراقة المدام حرديقي سوى الضادي كاس وحكفي عيني oo ka xalaashan yahay khamra la daadiyo khamra la daadiyo maxaa ka wanaagsan khamra la qubo maxaa ka wanaagsan dhulka lagu sii daayo ciidda la xamaarsiiyo waxaa ka wanaagsan ninka Abubakar iyo Umar wax ka sheegaya duriyo diintoodii cadaaladdoodii islaamnimadoodii in dhigiisi la daadiyo wa kaana iraaqatu damihi ahalla min iraaqati almudam mudamku waa khamrada hawsha marka aad iskaga ilaaliyo waxaa u baahan marka qaydka ah ay duraysa diintoodii cadaaladdoodii islaamnimadoodii maxaan ka wadnaa faasidnimaad ku sheegtay matalan waa lacnaday lacniga ictiqaadka ahaa waxaad ku sheegtay baadinimo dalaal kufri baad ku sheegtay kaafir buu ahaa faasiq buu ahaa dhaalim buu ahaa muctadi buu ahaa xadgudub baad u tirisay dunuubtan dadku bini aadamkaa loo tiriyaad u tirisay زاني بوها سارق بوها بنال بوها خائن بوها باتري أيضا نوع عاسى نينك أبو بكر وعمر أجيست أيوحي للنوع وكافر بالله العظيم ليس له في الإسلام من نصيب يقتل في الحل والحرم معايا لي حبيننا يا ايه مقتضى الأدلة المتواترة المفيدة لليقين والقطع بيننا ومكذب وزنديق وأن دون يدين ترى بينهم من شحابي والدمية يا بين لدين شيء واسد الرافضة أدون كمان تجوكت أي أبدانيين قليها زيدية ذا أموية وواجد ما يقول سيف النوبة فسهادي حوثيين تا كمدا هذا هو مفسدين ترقن كآمن سن هوشا سكو قال حق أو شيخين لقما أقبحي كرر لبدي وايل مسلمين توي لبدي قرب النبي محمد ولبدي تريد دين تكتاغنا الحق واحترك مكة الليلة حبهما ومن الدين بغضهما ومن النفاق اسكا إلالية أنصار بنبي يري لا يبغض الأنصار في صحيح مسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أنصار نكي يقان waxay nabiga u tareen waxay diinka u tareen sida inoo xambaarteen tunka noo saarteen dhiigooda u qubeen maal iyo naf inoogu horeen iyagoo alla doonaya nin ansaar yaqaana nin ilaahi iyo rasuulkiisa rumaysan aakharana ka wacaa la qaba ansaar ma nici karo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin abubakar iyo cumar yaqaana waxay ahaayeen wax kama sheegi karo waa niman iimaan lahayn oo iimaanka alla ka qaado oo shaydaan iyo naf duufsadeen waxaa kuu soo dha qaydka qofkii saxaabi wax ka sheega sheegid aan diinkiisa iyo cadaadisa duraynin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa mararka qaarkood ruux waxaad ku caayi kartaa matalan wax dhaqan ah ama baxaali ah ama dabeecad ah ama dhalamad la yidhaahdo hebel fulay buu ahaa baa tiri matalan hebel bakhayl buu ahaa baa tiri matalan kuma ficeen nin gaabanoo foolxun buu ahaa baa tiri matalan nadaafadda kuma fiicnayn baa tiri matalan waxbaad sheegtay adugu u laabanaya khilqiga bini aadamka qaab abuurka u laabanaya midka asaga waa macsi waa kabiiru min alkabaa'ir waa ghiiba waa qadfi waa wax ka sheeg waa can laakiin gaalnimo ma aha kaasoo kale wuxuu gaalnimo ku noqon karaa in aad bannaysato oo istixlaal buu gaalnimo ku noqon karaa farqiga marka u dhexeeya ruuxa inaad ku caydo wax khuluqi ah iyo oo diin ah iyo wax khalqi ah inaad ku caydo jubniga iyo bukhliga wixii la halmaala iyadu ruuxaad ku cayda wax kaga sheegta waa fisqi waa kabiira min alkabaa'ir tacsiir baad leedahay adaa ku faasiqoobi laakiin lagugu gaalaysiin maayo ilaa aad ka bannaysanayso laakiin haddaan aragnahay inaad qaabkaad ugu dhaqmaysaba annaka tumaarisu hada alficla mumaarasata alxalaal من غير تحرج ولا مبالاة ضابط كي وقرنا يساره أيضنا هوستا لقى حريقايا اسكا إلالي وحاير راعة وحاكلوا المسلم هين ننكي انكروا الضفرة أبو بكر صاحب نمد إنه صحابي هاي أما عمر صحابي هاي وحاكلوا المسلم هين ننكي الضفرة خلافة الراشدة إني أهيد
أبو بكر خلافة ديسي إيه دولة ديسي إيه عمر ننكي إنكرنا سونا وكافر بالله العظيم لأنه هو مخالف لإجماعه المسلمين من الصحابة والتابعين هوشاس اسكي إلالي صادرتين بي حتى خوارج كاللحدين خلافة أبو بكر وعمر كاللحدين وقد مسكال الله ديين عثماني علي اسكال الله تشي وبنانك أي كمرين صبق لبضع النوعوي مدو اللابانا يوقفك الدين تسي عدالة ديس يمدو اللابانا قفك طبيعة ديسي بحالك سي قاب أبوركيس من اسكي وافسقي الدين الآن من نوى لقو قالوا به يا مركان مرينه هوشة هي أبو بكر عمر يددك الله المالك وحكمك علي عثمان بالله المالك يرق الله متك يأدي كنت مت ديانته دي الدين تدو الإسلام كنت عضين أما إجماعة أما أدلة ضرورية من القرآن والسنة هوشة اسكوك هذا مدة دورة سنة بابك وتكلنا وبابك الدين تنقول لا بنين وحيتا قال لما كنا قطع استحلال بيكون نقونيس هذين استحلال كبد بدنا وكبيرة من الكبائر تعزير يدم بكرياضو فاسق كن نقضي كينيس خلاصة مركة وحاوي نينك سيدنا عمر إيه سيدنا أبو بكر وحكا شيئا دورة طعنية دورة الله بنيس الدين تو وحكي يليس وكافر بالله العظيم هدو كافر يهي maxaa inaga aadan illa dila inaga aadan meel walba lagu beedsado madaxa la qaado hadii la awoodo weeye fidna weyn ay ka dhalanay markaan ka dhamaado hadalkoon aamuso yaad ila hadli kartaa waanu ku fadhinayaa warkaas aad baan u rabaa haddii uu yidho waan toobad keenaya maxaa tala war kufriga aad sheegtee عمر بن عايجري عثمان بن عايجري أبو بكر الصديق بن عايجري هذا أن طوبات كنا ربابوري طوبات مكية لنا أو سيفت مكتو القاضي إننا مسوى مرينا وحان لنا طوباتو هذه ربنا ويدين الله أما أنه وانكو ويدي سنين المختار المفتى في فقه الحنفية وحوي لا تقبل التوبة فهو كالزنديق لقد لقيسن ماي والله حلالين كدبنا ربيها ولا تقو توبة إذا بالو إليه ورأي المالكية تعزيرا بها النقطة هاوشا مك الله من منك أقول لي أقول ماذا كذا أن أبوغين كبي يدي وشافعي لأنه أشاعرها كبدا ماذا كانوا ويفس هذيين وحي قرنقي صدحات كدم بيبا ماذا كان بينك عيارين ماذا بالسنة والسلفية وعقا علوس كتاغن وابو عبد الله الشافعي الهاشم واساسي بوها رقوا وين السلفيين تركا واساسي طبقات كوبات اردي سايد طبقات اللباد ارض دايد تي صدحات ما كلا دافي وحي كدنبي اهل البدع بي بدنيين معتزليه جهميه اشاعريه بلاي كل بكامو الا من رحم ربه ودف اموين وقل ما تجده اسكو اوغادا وش ايضا نمك مدب كو عياري قاضي حسين بحول سورداي فاسد وحق الشيخين مالك كدحاي وانا اشعري خربا هوشا ان فانتين بيلتاي رايي حنفيه waa maxay وكذلك المالكيه ولو ضمين اخر لو ديري اذا بهيشو هدو توبه نصوح لا يمدنا هي ربي يجيب له هذا هي وقضيه علماء مرين نينك النبي محمد وحك شيغو كله حتى هدو توبتك يا صلى الله عليه على الراجح من اقوال اهل العلم دغلك الله قاده هي هوشا سو قال اسك الاليه ان درس ان دكستان درس كدغتان walaalii iyo wiil ka dhigataan muslim aad moodaan nin carabkiisa ku labahaya Abu Bakar iyo Umar waayeelkii muslimiinta ninkii saa u dura muslim ma aha meeshii lagu arkana hal lagu dilo wabillahi tawfiiq maxaa tiraahdo xagee joogaan baan ku hor جيجي جوجان هذا هو جيجي معاك جاي
ninka cantara baqashkiista intaad iga dayso maanta aniga waan kula hadlay maxaad ugu aaminsan tahay ugu taageersan tahay ninka marka saan oga shaqayn lahayn baan iska kaashanayna warka dhan soo gaabi warka dhan soo gaabi abubakar iyo cumar ninkii wax ka sheega iyo hooyadan caaisho dura diinteedii iyo cadaaladeedii muslim ma aha waa kaafir billaahi alcadiim nimankaa jigjiga jooga ee soomaaliyeedna ay hogaaminayaan qoyskan reer macallin hogaaminayaan wax waajib ku ah ninkaa la sheegay ee jigjiga jooga ama adisaba jooga ee wax ka sheegaya duraya diintii iyo dadnimadii abubakar iyo cumar iyo caaisho iyo xafso waa in adduunka la dhaafiyo muslim ma aha waa murtad zindiiqa reer macallinna ma aha soomaalina ma aha gaal weeye geesa waaweyn dhiiggiisu waa idin xalaal dhiiggiisu waa idin xalaal aakhara ana u qaawan adduunka la dhaafiyo والله سبحانه وتعالى أعلم